السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتقسيم سكوير برتمها مقالة اسطنبول ودنك تركيا أما اسطنبول تركي وكاس وحين شوية مقالة برتن كذي وبرتمه مقالة أما واحد اسمه أتغانو فرس مقالة وكان هوتيلك هو عنصر مقالة هوتيلك أسباب على مدى الصومالية هي على مدى تركيا هي قداشي إذن كم موضوع وتقسيم سكوير ما شاء الله ما أنت أيان صوب وقضي ولي وحن كتير بوقشدي أن كتيري مقالة اسطنبول ودنك تركيا هذا أي أخرى انتهي وودن نظام يكال الدنبين له إننا ما أنت dib ayaynu u dhacnay ummadda Soomaaliyeed u dhacayaa ku dhacay maadaama la doortay doorashada aanu kuma sheegi karin laakiin xulasho haradigii Tigreega Itoobiya waa la socotaan Xasan Sheekh Maxamuud inuu khaa'inul wadan yahay khabiis yahay khaa'inu diin uu yahay waa la socotaan ummadda Soomaaliyeed Axmed Madoobe inuu Tigreega Itoobiya jaajuus u yahay haddana uu Kenya cadawgeena Soomaaliyeed uu u shaqeeyo deni sidoo kale inuu jaajuus imaaraadka carabta yahay waad la socotaan walaalayaal waxa waaye haddana carabta ragga naagaha ka gaduu noqday deni waad la socotaan deniyooga Daniel baan u aqaanaa addoonkii laga soo masaafuriyey Zanzibar waaye wakaas waddankan waa xor weeye waddan xor ah ayaan joogaa alxamdulilah marka waxaan idiin sheegaya ummadda Soomaaliyeed god ayay ku dhacday maadaama xabiibul malaayiin isbahaysi xaaraana loo samaystay si looga hortago inuu mar labaad soo noqdo conspiracy-gaas ama shirqoolkaasna waxaa mas-uul ka ah waxaa lagu magacaabo beesha caalamka walaalayaal waa ogtihiin nama matalaan atmis iyo amison iyo waddanka malaha Soomaaliya ayaa iskale ma rabna Xasan Sheekh Maxamuud waa in la diidaa ciidamada qaranka waa inay diidaan 8 bilood ka hor 8 bilood markii 10 bilood muusa siinin mushaar xilligii 2016 waad la socotaan aniga beledweyne waxay igala soo hadlay niman askarta dawladda ku jira waxay ii sheegeen in haddii uu soo baxo nin walba guriga hooyadii qoriga oo haysto uu la aadayo marka saas ayaa ku fiican waayo Soomaaliya god ayay gashay waxaan ilaahay marka qof walba qorigiisa ha qaato naftiisa iyo maalkiisana ha difaaco inta dawlad Soomaaliyeed oo sharci lagu soo doortay oo baarlamaan Soomaaliyeed oo xor ah uu soo doortay waayo hadda ma aragna anaga baarlamaan Soomaaliyeed oo xor ah oo xalaal ah madaxweyne ay doorteen waxaan aragnaa nin markii horena meydka u sujuudayay Kenya gabdhaha Soomaaliyeed gadanayay aniga waxaan ugu yeeraa myself waxaan ugu yeeraa Xasan Sheekh Maxamuud Xasan Xaari Walwaal ayaan anigu aan maaragtay u aqaanaa Xasan Xaari Walwaal ma geeyo kursiga kan waa ogtihiin Mooryaan inuu ahaa dadka laaya waa shabaab ninka la yiraahdo Xasan Sheekh Maxamuud waa nin shabaab ah waa nin ummadda Soomaaliyeed oo dhan ay taqaano oo cadow ah waa ninkii intuu jigjiga tagay dhaantaynayay lahaa Itoobiyaad ka mid yihiin waxaan leenahay dadka Soomaaliyeed Kenya ay gumaysato iyo kuwa Itoobiya ay gumaysato labadaba waxay ka mid yihiin Soomaali weyn in la xoreeyo ayayna u baahan yihiin Xasan Sheekh Maxamuudna afayaan uma noqon karo isaga Tigreega Itoobiya u shaqaynayay jaajuus ahaa waan la soconnaa walaalayaal Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu ka shaqeeyo waan la soconnaa prostitution family baan u bixiyay Xasan Sheekh Maxamuud iyo familigiisa dad ka ganacsada gabdhaha sharmuutooyinka oo ay Sacuudiga u doofiyaan waaye ninka la Xasan Sheekh Maxamuud waddankii Soomaaliyeed god ayuu ku dhacay waan ka xunnahay runtii ummadda Soomaaliyeed waxaan dhihi lahaa hal la diido ha laga hortago shaydaan madoobe dhuxulaysta aan geedanaar iyo daniyoogo يا حسن حاري والوال وأنا سلام يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.